bal waxaan doonayaa in adin yar iga siiso taariikhdaada goorma timi مثلا dhulka Soomaalida Somaliland oo kale waxaan imid kun iyo sagaal boqol iyo kadi iyo saddex iyo afartankii baan imid maxaad ahayd markaasi 43 markaad timi 1943 nin military baan ahaa dabadeedna battalion first Somali battalion balay soo diray dabadeedna xagga Burma baanu tegnay oo dagaalkii labaad baanu ku jirnay marka dadkii halkan ka tegay Somaliland ee askarta ahaa ee first battalion-kii ayaad la socoto raacday adiguna miya askartii Somaliland ha marka goorma haddana markaa kusoo noqotay dhulka Soomaalida dagaalkii markuu dhamaaday Burma waa soo noqonay Somaliland baanu soo noqonay anaga iyo battalion-kii iyo askartii oo dhan marka ma askartii umad halkii shaqadaadii askartaad kasii waday mise shaqo kalaad qabatay maya Somali Scouts baan galay Somali Scouts waayo first battalion wala baabi'iyey dabadeedna Somali Scouts baa jooga waqtigaas dabadeedna anaga galay Somali Scouts sanad ama sanad iyo baad meelaha laakiin mar miyaad noqotay guddoomiye degmo DC miyaad noqotay marnaba dabadeedna dowladda Ingiliis baa yidhi wax wanaagsan inaad Oxford University tagto dabadeedna inaad soo noqoto baa fiican oo district commissioner inaad soo noqoto baa fiican aynkaas buu ahaa dabadeedna waxaan tegay Ghana oo waxaan ahaa district commissioner xagga Ghana dabadeedna kii barasaabkay weedaaden baa ii yeeday halkan oo Hargeysa baan soo noqday dabadeedna DC Laascaanood baan noqday sanadkee bay ahayd district DC-ga Laascaanood markaad noqotay waa labiyo kontonkii weeye laba ama saddex iyo kontonkii malaha maxaad kala qabatay shaqo kale ma ka qabatay dhulkan Soomaalida afiyo kontonkii 1944 kontonkii waxaan tegay Jigjiga waayo waxaa jira agreementkii dowladda Ingiliis iyo Ethiopia 1954 buu ahaa dabadeedna waxaan ahaa liaison officer oo Jigjiga baan joogay dowladda Ingiriiska aad joogtay dowladda Britain dowladda Ingiriis ha okay dabeetana goormaad haddana kusoo noqotay Hargeysa sagaal iyo kontonkii dabadeedna xamar baan tegay waayo waa la wareejiyey foreign office baa la wareejiyey dabeed waxaan noqday first secretary embassy safaaradda Britain ee Muqdisho safaaradii Ingiriis Mogadishu ha goormaad haddana markaa ka tagtay sanad ama meelaha baan joogay dabadeedna noqday England uu caawin jiray Abdulrashiid Ali Sharmarke oo xafiiskiisii baan ka shaqayn jiray ra'iisul wasaare ahaa Cabdirashiid ra'iisul wasaare halka ra'iisul wasaarihii buu ahaa waay goormaad markan dambe dowladdii Soomaaliya burburtay 19 UNISOM baad u shaqaynaysay Soomaa xamar Muqdisho 94 ha sida laakiin waxaan ahaa taliyey kuwii SRGS sanuun taliyey baan ahaa dabadeedna markuu tegay mid kale baan taliyaha iyo ninkii Admiral Howe baan taliyihiisii baan ahaa dabadeedna aniga ma jeceli sidii UNISOM soconaya dabadeed waan iska tegaya nabadgelyo dabeedna Hargeysa timi mar dambe Somaliland yes kaas waxa weeye waa 93gii ina egal baa noqday madaxweyne buu noqday halkan Somaliland dabadeedna isaga baa yidhi waxa wanaagsan inaad noo yimaado talihiisii buu ii doonayaa dabadeedna sanad iyo bar ama laba sanadood isaga baan u shaqayn jiray markii dambena mashaariicdaadan gaarkaad bilowday dabadeedna shukran imika 98kii ha waad mahadsantay John